الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس. iyo sidii ay maaragtay productiga ay soo saaraan iyo waxa dadka ay ku daweeyaan waxa laga soo siiyay shahaado aad u weyn dhowr qof baa Al-Huda ka baxday oo runtii kulligood Soomaaliya Ilaahay wuxuu qadaray subhanahu wa ta'ala in xitaa ay u soo magacaabeen Yurub oo dhan yaani maaragtay waxa loo soo magacaabay nin Yurubiyaana oo Talyaaniya ayaa wuxuu codsaday inuu qaato Yurub oo dhan si uu u matalo Al-Huda Herbal Medicine markuu arkay waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda iyo sida ay dadka maaragtay u treat gareynayso ay dawooyinka dabiiciga u siinayso waxayna codsadeen wadan walba in la geeyo oo dadka wadamada jooga ay mas'uul ka noqdaan marka waxaad arki doontaan dadkii ajnabiga ahaa iyo shahaadooyinkii iyo waxaad arki doontaan dadkii ballan qaaday inay qaataan ama ay mas'uul ka noqdaan Yurub oo cadaana. وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد. وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها. بسم الله. أنا كبلامي مقعي ومريم عثمان، waxaan ka tirsanahay dadka bukaanka ee dawada ka qaadanaya Al-Huda Herbal ee Ilaahay ku caafiyo alxamdulillah. waxaan qabi jiray babaasiirka xanuunka la yiraahdo iyo gastri labadiiba Ilaahay ugu caafiyo alxamdulillah. Ilaahay mahadaas u sugnaatay. ma aha farxan inuu gadayo caafimaad dadka aaminsan inuu farxan caafimaad gadayo ma aha sida xaaladu farxan wuxuu gadayaa daawo Ilaahay agtiisa ayay ahaatay qofku inuu ku bogsado. qofku waa inuu bariyaa marka uu dawada qaadanayo inuu Ilaahay ku caafiyo dawada. anigu waa ku bogsaday alxamdulillah. Ilaahay baana ku aaminay Ilaahayna ugu caafiyay. markii aan farxaan u iimaanay waxaan qof mariil soconaya aan cunto qaadanayn hurdo seexanayn wax qabsanayn oo ilmihiisa wax u qadanaynin alxamdulillah. imkana meel kastaan maraya meel walba ka soo shaqaysanaya Ilaahay wuu ugu caafiyay. waxaan kale oo meeshan aan hambalyo uga direeyo salaan sheekhayga khayr Allah ha siiye maxay ahayd iyo shaqaalihiisa sida firfircoon maxay u shaqaynaya wax kale oo aan cashaan ugu abaalgudana ma garanayo sheekha anigu Sheekh Farxaan Cali waxaan oran lahaa janna firdawsul a'la Allah kuugu bishaareeyo adiga iyo waalidka iyo awlaadaada iyo aswaajtaada insha Allah ta'ala janna firdawsul a'la Allah kuugu bishaareeyo. halkan waxa ka hadlaya Abuukar Umar xanuunka la yiraahdo dhiigkarka ayaan ka cabanayay in doora iyo qanjirka la yiraahdo prostate-ka dhaqaatiir badan baan la maray dhaqaatiirta badan waxba dawo bay siinayaan chemical lahood ay iga jabinayso waxoogaa muxuu ahaayay dawo la nool baan ahaa marka waxaanu imid ninkan sheekha markii aanu imid dawo ii qoray dhiigkarkii 9 casho markii aan isticmaalayay dawadii ayuu halkiisii ku noqday caadiga ahayd muxuu ahayd dabadeedna dawadii waan joojiyay aad iyo aad baan ugu ladnaaday oo ugu fiicnahay hadda ma qaato dawo ilaa muddo dhowr bilooda ma qaadan dawo dhiigkar muxuu ahaayay waxaan u noolaa isku arag subax walbana waa isjeegareeyaa waa normalkiisiiba u noqday muxuu ahaayay waxa aan qaataa imika dawadii prostate-ka
iyadana aad baa xanuunka iga yaryahay hal mar baan qaatay koosadii labaadna waan qaadanaya haddii ilaahay idanka ka dhigo aad baan ugu fiicnahay oo aan uga reystay xanuunkii in doorana waan la maray inta aan marayna muxuu ahaayay dawo kaarka maaliniya laba kaa jabisay oo dabeedna uu halkiisii ku noqdo uun baan muxuu ahaayay isticmaalayay oo kuwan dhakhtarada caadiga ah dawooyinkan harbalka aad bay u fiican yihiin ilaahay ninkaa gacantiisa wuxuu iga siiyey dawo alxamdulilaahi rabbil caalamiin xanuunka laygu sheegay macaanka laygu sheegay marka xanuunkaas markii laygu xaqiijiyay insha Allah diidna markaa farmasiida ay gudadeen kaniin baad qaadanaysaa oo macnaha noloshaada ma diideys ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu ii qadaray inaan xarunta ilaahay soo waafajiyo marka xarunta markii ilaahay soo waafajiyay alxamdulillah doctorka noo imiday xarunta macnaha u qaabilsan diidna insha Allah doctorkii ayaanu imiday insha Allah waxa ku dhimay doctorka xanuunkaasan qabaa insha Allah ilaahay wuxuu waafajiyay dawo fiican bii qoray marka hore taasoo waxaan ilaa iyo 4 taabalaas baa ayay u sheegeen inaan qabo macnaha ay soo xaqiijiyeen inaan macaankan qabo yaa la soo xaqiijiyay marka doctorkii markii uu ma qabtaa haaba ku dhwan qabaa markii dambe dawadii bii qoray soo qaaday wuu dawadaas waan soo qaatay ilaa iyo intii ilaahay qadaray waan qaatay alxamdulillah bismillaah horta awalan bismillaah baan ku dawada ku bilaabay yaano ilaahay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala iga kaxay aaminsan ilaahayna inuu wax kaxay aaminsan dawada ilaahay subhanahu wa ta'ala markaan dhameeyay dhibaatadii ay haysatay macaankii kor u kacaysay ilaahay wiiga dulqaaday kadib dhakhtarkii ayaan imiday mar labaad waxaan ku leeyahay waan fiicanahay doctor wuxuu weydiiyay ma isbaadho macnaha ma soo hubisay buu weydiiyay waxaan ku yiri waan soo hubinayaa baan ku yiri haye bii soo xaqiiji marka la xaqiijiyo kadibna iga soo noqon buu alxamdulillah waan soo xaqiijiyay warqadaas baan ku soo xaqiijiyay oo hadana insha Allah dhakhtarkii ma dib mar daba aan ku laabtay mar labaad ku laabtay waxay ii sheegeen alxamdulillah inay tahay nil ama inay waxba lahayn ba nil macnaha wax ma laha waxba ma jiraan ba aan bay tahay 80 kaasi waa intii qofka normalka ah caafimaad qabay weeyaan bay bilaadeen alxamdulillah waan ilaahay ayaan awal u shukriye diina insha Allah xaruntan hayaan medicine ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay noo keenay aniyaan ugu mahadnaqay macnaha xarun aan u arkayna tahay farish ilaa dadka u soo jooga magaalada Boorama waxa laga helay xanuunka sonkorta 2015 bishii labaad kabacdi Boorama laga helay waan ka tagay waxaan tagay Hargeysa sidoo oo kale dawada ayaa la qoray dawadii markaan bilaabay ayaan waxaan tagay herer hadaan tagay aad sidoo oo kale waxay dhaheen dawada iska wad intaad nooshahay dawadii baan soo qaatay waan imi muddo sanad ayaan dawadii cunayay 2016 bishii labaad ayaan sheekhan la kulmay daawo ayuu ii qoray dawadiisii markaan bil qaatay ayaan dib ugu laabtay hadana bil damo ii soo qoray 6 bilood bay waad wadaysaa 6 bilood markaan 4 bilood adigu markaan waday dawadii xanuunkii waa la iga waayay negative baa la yiri kabacdi dhakhaatiir kala soo mar buu yiri soo baar ilaa 3 dhakhtar baan maray dib baan ugu laabtay sheekhay wuxuu yiri adubna sanaa waxa la yiri negative kabacdi dawadii waa la iga joojiyay hadda muddo 7 bilood wax daawo ma qaadan alxamdulillah ilaahay iga kaxay xanuunkii waa la iga waayay waana fiicnahay markii hore dawada markaan bishii hore qaatay oo sonkortayda aan qiyaaso oo sonkorta waxba u yiri digweede ayaan sheekh ku noqdo waxaan ku ri sheekh sonkortiina sidii bay u taagan tahay dawadina waan qaatay marka sheekhu igu dhiirigeliyay wixii dawada wad ha ka shakiin ilaahayna tala saaro waan waday adoo 4 bilood markaan waday dawadii xanuunkii waa la iga waayay marka alxamdulillah sheekhana waan u duceynay ilaahay khayr ha siiyo isaga igu dhiirigeliyay inaan sii wado haddana xanuunkii waa la iga waayay negative baan ka ahay alxamdulillah sheekhana waan u duceynayna ilaahay khayr ha siiyo dadka waxa laga dhaadhiciyay inaan dawadan kiimikada qof la noolaada xanuunkan uusan tagi karin dadka laga dhaadhiciyay laakiin si wixii ilaahay keenay xanuunka ilaahay soo dejiyay daawo soo dejiyay ilaahayna wuu ka daawo wixii ilaahay uu ka daaweynaya waa ka tagayaan ilaahayna wuu naga daaweeyay alxamdulillah rabbil caalamiin anagu waxaan ahay qof weyn baan ahay ana ahaade in badan baan xanuunsanayay
haddaan xanuunsanayna intaa dawaan qaadanayay dawooyinkan intaa qaadanayay waxa la wax oo istafiida oo aan sidii wad kugu kordhay ma jiro dabadeedna wadaadkaasaa yimi sheekaasaa yimi والله يتلمامي وحال هلكن شيخ baa joogo waa ilaahay bay soo dhaqaajiyay talaabada ilaahay baa iska wata waanu imi hadda waxa igu gaadhay inaan 2 sanadood aan ka qaato dawo dhiikar baan lahaa macaan baan lahaa fiix baan lahaa alxamdulillah maxay kale waxaan lahaa gaasaran lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin imika aad iyo aad baan uga fiicnahay xanuunadii oo dhan aad baan uga wanaagsanahay marka insha Allah bismillaahi kariin ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyagana ilaahay isagana inuu ilaahay uu maxay yahay aakhiriga adduunba uu ilaahay uu khayr siiyo oo ilaahay caafimaad siiyo oo maxay yahay ilaahay umadiisa uu batoorco uu wanaajiyo uu siiyado waa inta in ilaahay isagana jisaada ilaahay uu ka shaqaysanayo islaamka ka shaqaysanayo inuu isagana ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay uu barakeeyo aakhirana ku wanaajiyo iftiinkana ku wanaajiyo ban ilaahay ka baryaya waxa weeye xanuunkaygu waa kansal intaas oo dhakhtar baan tagay waxba way iga qaban waayeen imiga waad baan u fiicanahay inta dawada sheekha aad baan ugu fiicanahay aan dhiig xoog badan baa iiga socday inta imiga dawada aan qaatay dhiigii wuu yaraaday isbedel weyn oo caafimaadaan dareemay marka tagu magaalada joog jaalan ku noolaa waxa weeye aad baan imiga u fiicanahay kolkii dawada sheekh la ii doonay anigu sariir baan saawaalay kala garasho ma lahayn waxba ma ogay wax la ii keenay laakiin dawadii markii la siiyay ayaan isbedel weyn sameeyay wax ii soo kordheen imikana alxamdulillah rabbil caalamiin dawadii markaan qaatay waan aniga xafiiskii imid ee cagahaygii ku socda kansalkiina waan ka dawoobay alxamdulillah rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan markaa oo imid muddo 2 sanadood ka hor meelahaas anigu markaa xanuunsanaya oo xanuun fara badan dareemay qaar ka dambe badan ee macdanta intaas marka sheekh markaa mid wuxuu ku sheegay xanuunka la yiraahdo guri waxa la yiraahdo musmiyaan marka dawooyin buusii waan qaatay waan ku soo noqday macaan xaydkuna khalkhal biyo gali jiray marka uu khalkhalana xanuun fara badan dareemi jiray marka waan u imid dawooyinka way qoray muddo markaan xogaa qaatay waan ku soo noqday dawooyin kale ayaan qaatay marka waxaan dareemay isbedel fara badan oo wanaagsan dhowr jeer baan markaa ku soo noqday markaan dareemay inaan isbedel ku dareemay caafimaadkaygu ku soo raynayo sidii baan markaa muddo la socday ilaahay subhanahu wa ta'ala markaa alxamdulillah ilmo iyaan ku helay alxamdulillah markaa saasan ugu caafimaaday marka ma sha Allah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xarunta Al-Huda xanuunin badan hayay ayaan daawo ka qaatay waa ku ladnaaday alxamdulillah rabbil caalamiin muddo badan ayuu yahay ma sha Allah dawadii siiyay wadaadku aad iyo aad baan ugu caafimaaday أنا دويدي قاعدنا أنا وان على شيء ذي لا يوسيي الحمد لله أرت إلهي بأوبط كهية هذانا الحمد لله كل دويدة إن بيلهي وعاف ما يدي لأن عم دب ذنب يحنوني هذا ما بقي أسكر دوري تبصنا نكب ذنب يحنوني ما شاء الله وكل ناضي الحمد لله اختار رب ضمان لحريري وحدة وأنا دويدو ذي ما ينفعن الحمد لله دودي يوسيي شيخ خير الله سيي أي إلهي وعاف مادي دود دنبنا وانك قاطي هذا يسقم مويه دختر كلا ولا محريره مركا وحي إلهي لوغو مهديه إلهي بانا نوغو كينا ملايني هرقيس إلهي بانا صدر وحي إلهي صدر أنو قياس كراه مركا الحمد لله هذه أد بما سنتين قلدا يتمي يا شيخو هذه أد بنقوم هاد علنيه ما شاء الله خير الله كسيه عنونك يهاي وها ودادك وحيقول ومصبيان لين عاد بيحنوني كمبيوتر كستان سسارن وحللها وحلالة وحكو هاي ماله حبب ما قبتت عدنا مركا شيخ ويمين ورايستي يقول حنونك قصاص أيوب بدني هاي ومصبيان كا مركا داود سوا قاعدة داود أنا قاعدنا يا أي إلهي سبحانه وتعالى يا إلهي سيلما
intii kadib anoo dawadii ku guda jiro dawadii qaadanaya ayaa Allah subxaanahu wa ta'aala siiyay ilaahayna waan ugu mahadinayaa iyo sheekhaba ma sha Allah. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hinda Cabdillaahi Cabdi markii hore waan xanuunsanayay madaxay xanuunayay jirka oo dhan bay xanuunayay xarunta alhudaan la xidhiidhay khayr Allah siiyo sheekh Farxaan ayaa lagu tagay waxa la iga helay bahasha xanuunka la idhaa musiyaamiyada alxamdulillah dawadii aad baan ugu fiicanahay sheekhana khayr Allah siiyo dambigiisa Allah dhaaf waan u ducaynayna أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء أنا باسم الشافي